بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسؤال كمده سؤاله إني جوجوسكا هاي فيسبوك وأنا سؤال باهي هذون بدنتها سؤال شيء دون صار الله لعبته سائلك وحولي هي دعوة شذا في المانتن حن إقاونانت رقي الدمر كحاران تسكو حير سنة daawashadooda ma dunuubta waaweynba mise waa dunuubta yaryar maxana saa'ilka waxaan ka garanayaa hadalkiisa inay xaaraantoo dembi yahay waa garanayaa marka waxba wakhti badan gelin maayo inay xaaraanta ma kabaa'ir baa mise ma aha laba arrimood baan rabaa arrin hordhacaan rabaa inaan tilmaamo intaanan mas'alatu nadar ma min alkabaa'ir baa mise ma aha aanan dhihin mas'alada kabaa'irta iyo sakaa'irta waxaa adag xadda faasilka ah ay ku kala baxayaan kala soocoodu ma sahlana kabaa'irtuna way kala yaryar tahay sakaa'irta yaryarna way kala waaweyn tahay haddaba sakaa'irta yaryarkaa kan ugu weyn iyo kabaa'irta midkan ugu yar meeshay iska soo galaan masale adag weeye faasilka iyo xad u helitaankeedu sida waxay yidhaahdaan shirkul asqarka iyo shirkul akbarka halkay ku kala baxaan lafteedu ay u mugdi badan tahay shirkigu waa kala waawenya kan asqarka ee yarna waa kala waawenya kan akbarka ana waa kala yaryaryah shirka asqara saad u socoto akbar markaad u guurayso akbarka kan ugu yar iyo asqarka kan ugu weyn xadda faasilka ah maxay tahay masaa'ilka alqaraafi iyo rag lamida fi lfuruuq farqiga u dhexeeyaay ay mugdiga iyo ishkaalka badan ku sheegeen buu ka mid yahay helisteedana uu madowga badan ku jiro oo hadhow waxaa la isu khilaafayaa madowgaa wuxuu keenayaa in qayb kabaa'irtii ka mida culummada qaaroo u dambeeya ay sakaa'ir raaciyaan weerarka qaarna kuwa sakaa'irta ugu dambeeyee ugu waaweyn ay kabaa'irta ka raaciyaan lidaalika masaladaas waxaad arki doontaa markaa shirki alasqar iyo shirki alakbar xaggee ku kala baxaan aad leedahay mantiqa iyo aag waxaad helaysaa khilaaf ka jiro kan waa asqar iyo waa akbar sida kabaa'irtaba aag khilaaf ka jira aad u arkayso ma aaggaas khilaafku ka jiro aag ijtihaadiyaada iska noqono qofna dhinacuu ka eego qofna dhinac ka eego waxaan munaasabada hadalkaa u keenay hordhaca mas'alatu nadar markii dhinacyada qaar laga eego min hada albaabi waay laakiin laba xaalo baa kala duwan fiirinta iyo joogtaynta inaad fiirisood aragto waa xukun inaad joogtayso daawatada badisana dee baabkii waxay geli culimmadu ay dhihi jireen alisraaru cala asakaa'ir sakaa'irta yararkaa haddaad daa'imtood ku madax adeegto kabaa'ir bay isu bedeshaadii baa ku saamaynaysa masalatu nadarkani sideedaba ma kabaa'ir baa mise waa sakaa'ir masala khilaafiya wey haddii la raaco tacriifka kabaa'irta ibn xajar alhaytami kitaabkiisa zawaajir iqtiraaf alkabaa'ir iyo ay qaateen la raacana iyo culimmada tacriifka iyo xadkaa wax ku salaysayna isagu dee kabaa'irtuu gelayaayo qaar kabaa'irta ka miduba sidaa ku tilmaamay haddii tacriifka kabaa'irta ibnu teymiye iyo rag lamida ay mareen la raacana sakaa'irtuu gelayaa ka mujarad fiirin iyo aragti marka laga hadlayo aniga waxaa ila dhow daahirka nusuusta wixii mar arag iyo ilku dhacaya mar fiirin ah inuu sakaa'irta yahayba ay kuwa yararkaa iila dhow sababtoo haddii fiirintii iyo gacanku taabashadii iyo wixii aan galma ahayn ee ka sokeeyoo dhan ina alxasanaati yudhibna sayi'aati ay ku soo degtay oo la yidhi weysadii baa dhaafaysa
lagu dhaafayaa. culimmaduna in badan ay yidhaahdeen kabaa'irtu towbo khaasay u baahan tahay. kuwana acmaasha saalixa ah yaa lagu dhaafayaa in alxasanaat bismi la yidhi. xasanaat yudhibna sayi'aati waxaa lagu dhaafaya waa sakaa'irta. kabaa'irtu towbay u baahdaan. ninka nabigu yimid alayh salatu wasalaam ee yidhi magaalada duleedkeeda qof dumaraa wixii un rag iyo dumar dhex mari jiray oon galma ahaynna dhex maray ee wixii hada iga fuliya inuu is asturo uun soomaadan weysaysanin soomaadan tukanin taasaa kafaara ku ah baa la yidhi. hadda mujarad fiirin bay hadda su-aashu ahayde nin fiirintii iyo taabashadii iyo tuutuujintii ku daray baa qismu sakaa'ir tacriifkii iyo xukunkeedii ah la raaciyay. mudaawamadii iyo joogtayntu masalo kale weeyo israar cala sakaa'ir waxay noqon lahayd oo lagu madxay oo lagu daa'imay tegaysaa. intaasaan maqaamka kooban dartii ka dhihi kari lahaa. intaa nabadgeliyo. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.